مديو عدلي قتبيو إلا على أركون كتيريو حسبيجي ومديو عدلي قتبيو إلا على أركون كتيريو حسبيجي أنباقا دماني يقول أقوت وتي اعتراف كسيدو marka intaanan hawsha u galin waxaan ku bilaabi doonaa sida caadada quraanka kariimka ah oo inoo akhriyo Ibrahim kusoo dhaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سنة إبراهيم شيخ فورن بين لكن قد كعذر دارت حتى أنا وحين ku bilaaban doonaa martidii aan ugu tala galnay inay ka hadasho kulankeenan maanta waan yar degdego waxaan isuudunta dadka badidooda way ku garanayaan laakiin hadda isku kin sheego magacaygu waa Khadar Xasan Alore imikana aan mikrofoonka ku soo dhaweeyo Ramadaan Maxamed oo inoo fura inoona faahfaahiya muhiimadda kulankeena isagoo hormuudka ah dhalinyaradii soo qaban qaabisay kulankan kusoo dhawow Ramadaan بسم الله والله ما صدق خضر الله بسم الله الرحمن الرحيم اولا الهي بقى مهضله marka hore isku keenay xafladana munaasabada qiimaha badan leh waxaan xoogaa ka cudur daareynaa saacadii kulanka aan ballanay inuu xoogaa dib u dhac nagu yimi waa taqaanana waa de iska caadadayna inaan saacad ama laba saac dib u dhacno marka aniga ku hadlaya magaca guddiga soo qaabqaabisay arrinka waan ka cudur daareynaa bismillaah waxaan jeclahay marka hore inaan ugu soo dhaweeyo xafladda qiimaha badan leh aanan runtii idinka mahad celiyo waqtigiina qaaliga idinkoo qaarkood ka yimi meelo fogfog arrinka waa idinka mahad celinaya waana ku mahadsantihiin magacaygu waa Ramadaan waxaan qayb ka ahaa dadkii soo agaasimay ama wax ku lahaa inay munaasabadan inoo qabsato sida uu Khadar ka dhawaajiyay munaasabadan ama ku arkaysaan qoraalada halka ka muuqda waxaanu xafladan ugu talagalnay ururka Hilaac oo ka mid ah ururada hadda ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadda ka mid noqday 10kii urur kama dambaysta u soo gudbay oo runtii soo gaadhay marxalad hadda loo xafladeyn karo ama la taageeri karo marka aniga ku hadlay caawa magaciisa waxaan jeclahay inaan si yar kooban oo kuwika aan soo koobayo bal aan idinka warramo waxa keenay waxaan isweydiinaya maxaa keenay ururka Hilaac ama xisbiga Hilaac sida ka warqabtaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xisbigan inta u tartamayo waxay soo martay marxalado kala duwan koob iyo 30 sano soo jirtayna waxa soo qabsoomay waxyaalo fara badan marka waxaan jecelahay xisbiga Hilaac ama istusay ama warka ila soo gaaray waqtiga horumarka ama developmentka horumarkaas oo hadii ay ka mid tahay dhinaca dhaqaalaha waxbarashada kaabayaasha dhaqaalaha deegaanka waxyaalahaas oo dhan xisbigan ama ururka Hilaac xisbigan rajayna noqda wuxuu istusay inuu wax ka qaban karo isla markaana ay tahay markiisii marka ururka Hilaac waa gurmad wuxuu gurmad u yahay Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu wax taro marka muxuu kaga duwan yahay waxaan ka warqabtaa inay jiraan axsaab hore oo hadda urur isku bedeli doona iyo urur raba marka dadku waxay isweydiinayaan ma anna way kanba mise wax cusub iyo ururka Hilaac la iman doona haddii la yiraahdo marka ururka Hilaac iyo madaxdiisu waxay qabaan in ay la iman doonaan waxyaalo cusub oo qaarkood la taaban karo halkana aad ka sheegi doono
كو أورك هلا وحكيت وين أو يونيك وأورك يوجه هي قبل أي كان قصة قدومية كحجين وبرب سر أحمد إسماعيل سمتر أو قدومية حسبك وحكوا اكتواء قبل وين ما يجرين هورنا وقوم يدعين إن قبل هير كاك قالوا حسبي أم أور مركو حيرها للتابن كرو أور كاسي وكدوي هاي قدم كلا بعد أور كان وحو محمد ويسين دونا دلني هذا أو أسمني بسنتي أما بقولك بس دوات الجمهورية السومالية لاندت كذا runtii baahi weyn u qaba marka ururkan wuxuu wax qabad ama muhiimad siin doona dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland hadii la hayraa horena uu galay oo waxa moodaa isagoo urur arkaan u ka dhameeyay oo hadii aad aragtay structure-ka ururkan uu dhisan yahay haday noqoto qurbaha iyo gudahaba ama golayaashiisa kala duwan fulinta waxa ugu badan hadda la shaqaaleysiiyay ama arrinka garanaya waa dhalinyaro u badan dadkii aan shaqada ku haysan jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxay ila tahay inuu maadaama hortamintii isagoo wali xisbi isku bedelan uu siiyay heerka in uu awood siin doono mustaqbalka hadii la xidhaado marka halkaan dhalinyarta xisbiga ama ururkani wax weyn ayuu ku soo korin doonaa hadii la xidhaado ururkani wuxuu leeyahay 6 tir oo ku soo bandhigi doona ama wax qabadkiisa uu gundhigo lixda tir oo hadda kartiga karaamo ana ugu horeyso dhinaca horumarka base oo ayuu ururkan la iman doona aanad ku arki doontaa hadii la hayraa marka hilaac sidaas idin sheegay guud ahaan iyo teamkiisu waxay u yihiin gurmad jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rajaynayaa dawaad ka warqabtaan oo la inaga warrami maayo gudoomiyaha ama murashaxa xisbigaasi hogaaminaya waa nin runtii qiimo leh Soomaaliland qiimo ku leh Soomaaliland qiimo gaar ah ku leh marka waxaan rajaynaynaa inaad taageeri doontaan dadka gudaha ah iyo dibadda inaad taageeri doontaan ma rajaynayaa ugu dambeyn waxaan jeclaan halkan baaq uga diro xisbiyada Soomaaliland iyo xukuumadda hadda talada haysa oo aan u sheego Soomaaliland intii soo jirtay waxa jiray sharciyo iyo xeerar iyo habraacyo ay mar walba ay hawlaha ku qabsanaysa haday tahay doorashooyin iyo haday tahay hawlo kaleba marka waxaad moodaa hadda inay saddexda xisbi ee dhawaan urur isku bedeli doona aad moodo inay iyagu ay rabaan inay shaar leegtoshaan oo ay xeer jajab iyo heshiisyo siyaasiya ay sameystaan sidaana mataqaanaa ay hore ugu socdaan waxaan rajaynaynaa arrinkaas oon ka digaynaa arrinka inaanu Soomaaliland dan u ahayn oo Soomaaliland ay leedahay 10 urur hadda oo meel dhex taagan oo daneeyaal ah oo active ah heshiis kasta ama xeer jajab kasta hadii laga soo daadego sharciyadii inay qayb ka ahaadaan oo nimanka daneeyaashii ay arrinka ku soo dhawaadaan ayaan ka codsanaynaa nimankaas inaanay kaligood wax isu yeerin arrinkan waan ku digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahad celinayaa assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh mahadsanid Ramadaan si fiican buu inoogu faahfaahiyay waxyaabo badan oo aniga lafteedu aan ka aqoon baan ka dhex maqlay in ururka uu kaga duwan yahay ururada kale waxaasoo dhan waxaa inoo dhaama inaga inooga sokeeya haddii uu guuleysto dee Minnesota inoogu matalaa Somaliland marka waa nin inaga tegay oo inoo maqan marka intaas aan ku taageeraynaa haddii aan meelahan ku aragno shaah ku kulanana dee waa taageerayaashaadii baan ka mid nahay intaas ay nagu filan marka xiga aan u yeedho Cabdirasaaq Ali Boos oo ah nin taaliyada miisaan culus ku leh oo isaguna kaalinta kaga aadan inuu halkan ku soo dhow microphone بسم الله الرحمن الرحيم سيدا الله يدين شاقي مقعيقا وحال لغير هذا عبد الرساق علي بوس وحانا هاي شعبك مينيسوتا الدقن و عيارها سياسة وكم تليو سمتر
هذا الكيجا أحمد إسماعيل سمتر كل ديران مايو أو هدي أن بلابو إن كشجع أحمد وحوي دور مع الموت بقادنيسا مركب أحبكم فوقان مايو لكن أحمد إسماعيل سمتر مركب وهو الرئيسو أني سو أنو إسبرنو إصلاح هذا النوحي هاي بريجو تجي حمر horta wadanka waxaan imid isagoo jidbaysan oo heel qaran miyaa la oran jiray oo durbaanka midnimada garaaca ayaan dalkan imid kadibna meelo badan baan isku aragnay kadibna wuxuu tagay Muqdisho kadibna wuxuu soo noqday isagoo aad u dayranaya marka toon hawl buu qabtay isagii Cali Khaliif Allahu naxariistay maalin dadkii ka qayb galay baanu kamid ahay كدب مالنتاس أيان أحمد برتي أنا جو وحنكو برتي أحمد إنه يهي نينا نقول political correctness أو وحو أميسن يهي شيغا quality gas عن منافقات دا أهينا جنسيك الصومالي وكوير يهي لبا الريموت دادك الصومالي دا وجعل بين إني اسكو انترتين غريان يوحان جرين إيو دادكو وحو أميسن يهي يصير هذا قف أمو حمادا درتيس وقبل كيه مالنتاس ماشي بيبيت وحيري أنا جو ماشي وان تري ده ماشي جيس كله يجليوني غير وقوي أنا هاي بالله الشاقي كو مركا كلمة ده غير وقوي بكسر العلي هذا يوتيوب كجشانا وضعون كرتان سؤال لو قد بي أنا جو حنا نيجي سؤال شويدي وكويري ورحمده وقوي جوادي كسر العلي ما حق صوصعتها كدبنا of course بيقولي مركو لما يستيمان لها الله عن كويري ورحمده آن رالي إيجار نقضي هديان سؤال هذا كويدي والسؤال شو في عناد بيويدي سبيري مركا آن سماتر سيدي دنا سياسة قلبيت كسيد عنو كو أرقناي وحاوي لبا قف أي سياسة قلا قف أكتيفيستا أو ربا وحينو بدلو جنجي جنجيga la sheegayna adduunka waxay wixii dadku yaqaaneen oo meesha ka jiray wax ka duwan qofku inuu la yimaado ama qof soo shaqeeyo oo retire ah oo bulshada raba inuu inta cimrigiisa ka hartay u adeego bulshadii soo korisay iyo dhulkii lagu soo koriyay ee wax lagu soo baray marka Ahmed waqti badan buu soo shaqeeyay jaamacadaha Macalester jaamacadaha ugu fiican wax ka dhigay hadeerna dalkii wuxuu tagay markaan u shaqeysanay inuu dalkii bal horta wax kale ba joogan Somaliland ka shaqeeyo waan in straight forward hadalkiisuna waa daacad intaas baan Ahmed kaga baxaya iyo xisbiga Hilaac waxaan rabaa inaan arrin yar ka u gudbo ugu horeyn waxa halkan la sheegay ururo in la qabanayo maxaan ku raada haddana ururadaas xisbiyo u gudbayaan my honest opinion anigoo taageersan processkan hadda oo de wax soo jiray uu yahay ama habraacan laakiin anigu waxaan u arkaa ururadan qof samaysanayo in aan meel fog lagu gaari doonin oo ay tahay wax temporary ah wadankan aanu joogno ee dimuqraadiyaddu ay ka jirto ururada dadka iska leh qof ma laha tusaale ahaan haddaan anigu urur samaysto Cabdirasaaq Cali Boos baa la yiraahdaa by the way warsangeli maanahay qofkaan garanayn waxa la oranayaa ururkii warsangeliga baa la oranayaa kadibna dad baa isaga ka hiilinaya anigu aan policy-gayga iyo waxayga aan taageersanayn marka xisbiga dalka Mareykanka aanu joogno dimuqraadiyadda aabeeda dimuqraadiga shacabka iskale xaafada ay soo doorta dad baa soo doorta kadibna madaxweynaha hadda Republicanka waa ogtihiin Mareykan oo rabin haddana Donald Trump mar labaad buu sharaxay inuu haddana marna nomination ka qaataa laga yaabaa waa wax dadku leeyihiin ma aha wax group yar iyo dad yar iyo maxaan ku raad qayb yar elite oo marba meel tagta ay baalkiiso marka Soomaaliland waxaan rajaynayaa hadeer waa ka in qorshaha lagu daro in loo gudbo xisbiyo dadku leeyihiin laba xisbina aanay ka badan ha way jiri karaan dad ah maxaan ku raahdaa independent oo gooni isu sharaxa laakiin haddii xisbiga reer hebel iyo waa marka yagi waxa weeye nin baan waxaan ka maqlay haddaad wada khaldan sida cawsha ugu orodid
waxaa dhaanta inaad wadda saxan sida diinka uga socotid marka habka lagaga gudbi karo Somaliland waxa weeye constitutionka in la saxo oo la qabto maxaan ku rahaa constitutional convention ama shir maxaan ku raahdaa sharci oo dadkan kala haga in la qabto 1784 Mareykanka sharciga hadda la isku doorto isbedel waa lagu sameeyay baa la qabtay iyadoo farda la raacayo iyagoo meel walba loo socdo iyagoo dadku is aaminsaneen iyagoo bahalki kadibna sharci bay qorteen dad dhalinyaro ah baa qoray oo founding fathers la yiraahdo marka dadkii reer Somaliland ay arkayeen 30 sano oo marba magac sameeyay mar walba wax sameeyay meeshii waa in laga gudbaa maaha meeshii in la taagnaado muxuu yiri nin reer Baydhabo oo shubka la yiraahdo baa wuxuu yiri hadii aad Faatixada akhridid oo aad wax ku heshay quraanka kale u gudub ma fahmaysaa wixii ma socon karaan anigu hadalkaas oo dhan waxaan leeyahay just honest opinion ra'yigayga saxda ah Somaliland hadda waxay taagan tahay crossroad meel isgoysay taagan tahay jidka ay qaado bayna mustaqbalkeedu noqon kara maalin dhaxasoon meel ka hadlay waxaan ridhi Somaliland in la aqoonsado oo ay go'do waxay dani ugu jirtaa East Africa waan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogan waa isku dan sababta aanu aaminsanahay waxa weeyaan koonfurti Soomaaliyeed ee waad ogtiin way iska fogtay hadeer waana dadkeenni waana bahalkii haloo ducay laakiin Somaliland tan wax la yabyabay xogaa in la saxo waa muhiim arinta kale jirto oo muhiimkaana waxa weeyaan in laga shaqeeyo forgiveness in la iscafiyo qofka bini aadanka ah inuu qofka kale cafiyo waxay ka mid tahay gobonnimada iyo courage-ka qofku inuu karti ku jirto buu qofku yiraahdo war khalad baan sameeynay waan iscafino Soomaalida waxa ka maqan sidii Rwanda oo kale inay yiraahdaan war waa isdilnay waa isxasuuqnay waa isbahalkeynay anigu waa joog markii dagaalada Soomaaliya ka dhacayeen intaas la ka waanoga qabaa'il baa la isu dilay wiil iyo abtigiis baa isdilay gabar la qabo baa reerkii qabay la qaxday oo reerkoodii lagu weerarayay maxaan ku raahdaa dad baa genocide baa meel walba ka dhacay cid walba cid kale way dhibaataysay laakiin hadda taagnaatid what happened yesterday haddaad maanta dhan taagnaatid it will not make better tomorrow baridaadu ma hagaagsananayso adduunka waa la isdilay Rwanda waxa ka dhacay 1 milyan oo qof baa 3 bilood gudahood la dilay markaasay meydkii markuu ku qurmay Kigali bay wabiga ku tuureen harooyinka Victoria kadibna haradii baa ilaa Kenya baa haradii quruntay ay soo gaartay bini aadamku waa isdilaa way dhacdaa dalkan Mareykanka dagaalkii civil war ka maqasheen 4 sano socday 800 oo kun oo qof baa ku dhintay haddana they move hore loo socday marka dadka aaminsan reer hebel baa cayn kara bari baa la isdilay waxa soo dhan waxa weeyaan waa daciifnimo marka waxa loo baahan dadka siyaasadda haya inay sameeyaan dadka hogaamiyaan oo ay ka shaqeeyaan hogaamiyaha ay u baahan tahay Soomaaliland at this point waxa weeye hogaamiye ka shaqeeya reconciliation bal dadka horta inuu isu laabxaaro iska dhaaf Somaliland ta kale xitaa beesha dhexe lafteeda wali waxa ku jira kalsooni darro anu saan dareemayo sababta qof walba uu xisbigiisa u bahalkeynayna waa intaas kaliya wax kale ma marka waxa muhiim ah in dadkii laysu midayo anigu dadkan soo arkay Somaliland waa ku noqnoqday waxaan ka soo tagay Ceerigaabo anoo waftiga madaxweynaha la socda jidkay calama noo ruxayeen gar adag ceelaf weyn dadka meelahaas taagnaayo dhan dadkaas ma ahayn dad doonayay dawladdu inay wax lacag ka doonayay laakiin waxay ahayn dad niyad fiican haya oo isla dawladdaas waxba idin taraysa maalin hore ka sheekay islaantii annagoo boorabo socno jidka naga raacday ee ninkeeduna beertii iyo lo'dii la joogay caruurteedina boorama ay jaamacadda ka dhiganayeen ee marna u dhaxaysay waxay ku tiri huuna waan u dhaxeeyaa bay tiri marna de odaygu baan xagga laagaasima marna xaggan aan tagaa dawladdu waxba kama dooneen dhalinyarada airport kugu soo dhaweynaysa dhalinyarada maalin walba qalin jabinaysa war dadkaas oo dhan hadda message-kayga waxaan u dirayaa dadkan siyaasadda isku haysta oo dadkii kalena wareeriyay ama xukunka ahaado ama yaano ahaan oo leh sharci ma aha
bal hadda waxa lagu leeyahay doorashada tan madaxweynaha soo horeynaysa tan ururada soo horeynaysa waxa soo dhanna waxa keenaya markii hore ayaan sharci legit ah oo sax ah oo dadka kala saara la sameyn golaha guurtida ee waligood meesha fadhiyay ee lagu yiri 30 imise joogan 4 war cabdi kariim imise fadhiyay 4 sano anu ma aqaaniba waxaan ka aqaanaa maxaan ku raahdaa indha ka aqaano ma fahmaysaa iyo waxaan ka aqaanaa Saleeman Yare Saleeman iyo baan ka aqaanaa aniga markaan tagay waxa la igu yiri 7 warsangeli baa jira oo maakhir iyo xagga matala waligayna ma maqlin ma aqaaniba marka dadka noocaasa laga yaabay inay xanaaqaan berita ila soo dagaalamaan laakiin I don't care dadka noocaasa waxay meesha u joogan waa sharci dejin inay wax sameeyaan kuwii barigii dhaweyta la doortay ee codka dadka ku soo baxay oo qaybtood aad aragteen waxaan islahaa dhalinyaro u badan yihiin dad wax furan waxaan islahaa waxay sameyn doonaan sharci wax lagu bedelo oo meel lagu hormariyo laakiin iyagiina waxay isticmaaleen inay mid walba urur la safto oo maalin walba idaacadaha isaga jawaabaan marka hadalkayga waxaan ku soo gabagabayn lahaa fariin gooni oo aan u dirayo deegaanka aan ka soo jeedo gobolka Sanaag haddaad ogtihiin wuxuu ku jiray muddo badan dispute ama deegaan la isku haysto I wish inaan reer Boorama ahaan lahaa hadda ka hor baan nin reer Boorama waxaan ku yiri intuu yiri waa nimanka Soomaaliland hadda ugu wadahon ma naga deeyst waxaan ku yiri warniyo orgi iyo wamba daris ahaayo orgigiiba habeenkii orgi waa iska qayladay ama ogti wankiiba wuxuu yiri niyo xaafadda ma kaaga guurnaa qayladaada waa ka seexan weyne markaasuu yiri waa runtaayo xilahaaga ku ogol reer Boorame waa runtiino 30,000 oo qof oo Soomaaliya oo dhan ka yimid baa deegaankiina degan oo aad barwaaqo ku haysataan oo ardaydii jaamacad helayaan oo aad ma garanaysaa wiilka kaga baxa dentista nin dhalinyaro ku arkay Boorame dental jaamacadda ilkaha kaga baxay isla markiiba kontonka wax yar bay saacad soo socday Hargeysa wuxuu ka furtay clinic la yara ilig dhaye oo dentista marka annaga gobolkaas aan deganahay hadeer xaaladda aan ku jirno ugu weyn ugu dhibaatada badan waxa weeyaan waxa jira dawladdan la leeyahay federaalka iyo Puntland oo wada socda ayaa wadankii waxay wada nidaam la leeyahay shidaal baa la soo saaraya oo fooni ah oo hab tuuga ah shidaalka in la soo saaray sharciga ka horeeya waxa jira in buuraleyda ama qasheen oo calmadow hadda la leeyahay niman waxa la gelinayaa maxaan ku leeyahay blood diamond nimanka buuraha qoto oo ma garanaysaa caloosha shaqaystayaasha marka waxaan leeyahay qolada dawladda federaalka iyo qolyaha kale war intaydan wax kala sameyn bal dhulka aad joogtaan nabad ka dhiga nin baa wuxuu yiri intuu rag u yimi saaxiibadiisa buug baan qoray buugga magacii how to be billionaire sidee billionaire loo noqdaa marka waxaan u baahnahay lacag faraysina inaa ii samaysaan oo aan buuggii ku daabaco waxay ku yiraahdeen inay buugga akhri bay ku yiraahdeen marka anigu waxaan oran lahaa haddii ay doonayaan inay Soomaaliya horumariyaan bal inta koonfurta joogaan ha sameeyaan waxa kale oo jira aan maalmahan arkaya magaalada Dhahar iyo magaalada Baran odayaal deegaanka iyaga ah oo intay dadka iyagii meel address la'aan ka dhigeen oo 2 box 2 meelood uga fureen bay haddana waxay leeyihiin waxaanu ka tirsanahay Highland waxaanu ka tirsanahay Sanaag dhulkaas oo dhan Sanaag baa la yiraahdaa marka waxaan oo dhan iska day raaliga noqdo hadalka waa idin ku dheereeyay Somaliland guul hilaac guul waana mahadsan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Cabdirasaaq uu inaga qosliyay ani wax badan og tusaalayaal badan oo soo qaatay hal wax oo aan Professor Ahmed Ismaaciil ka maqlay baan ka dabageeyay uu ka cudur daartay inuu yiraahdo ururkan aniga samaystay marka qofkii ku beeraya way u furantahay anigu wali kama mid meehi qolyaha waxaan ahay wax soo akhriyo horta ilaa iyo soo qanco aan cidna ku biirin waa markii ugu horeysay ee meel siyaasadeed aan imaado waxyaabahana keenay aniga in badan oo ila midana waa kulli isbeddelka socdoon meesha status quo baa jiray wax ka taagnaa 30 sano hadduu isbedeli waayana waxa aan ka sheekeynaa ma imanayaan marka maadaama aan isbeddelka isaga ku tuhmayno ayaan isaga dartii inaan
dhufayska ku jirna maaha inaan taageerno aan ugu soo baxnay marka idinkana sidoo kale waan ka mahad celinayaa mar labaad aan u yeedho nin isna dhalinyarada ka mid ah jaaliyadda muhiim ah faarax maxamed ku soo dhawow microphone magacay waxaa la yidhahdaa faarax maxamuud faarax maxamed markan dee last name comba la isugu yeedhaayo faarax maxamed odaygii iyo kii dhalay wixiiba dhexday ka baxeen marka horta magaaladan waan ku cusbahay dad badan isma naqaano aad baan idin salaamayaa kulligiin reer Minnesota midda kale runtii waan iska ilaaliyaa meelaha siyaasadaha lagaga hadlayo inaan ka hadlo waa markii ugu horreysay meel xisbi lagu daafurayo amaba xisbi jira aan ka qayb galo habeen dhaweyto waxaan tegey mid kaah iyo wadani waan diiday inaan ka hadlo marka caawa godob baan gelayaa laakiin waa godob wanaagsan ninka odayga ahee cabdinuur barkad oon abti u ahay dee markuu wiil yaraad abti u tahay ku yidhaahdo adeer abti waad hadlaysaa waa adag tahay sida nool lagu yidhaahdo midda kale waxaa runtii kalo ay muhiim igu tahay arrintan inaan dhowr kalmadood ka idhaahdo guud ahaan Somaliland kaliya maaha Africa oo dhan dhibaatada haysata waxa ku dhacay waxa la yiraahdo brain drain wastiga laga yiraahdo amaba aanu niraadno waa ka fikiro maskax furan ba maskax goror ba dadkii intii wax garanaysa ay ka tageen marka runtii muhiimadda weyn bay ii leedahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar inuu Somaliland ku noqdo oo xisbi sameeyo taasoo ina tusaysa maaragtay ku dhiirasho ah in dadkii wax bartay ay noqdaan waayo maalin walba waxaad arkaysaa waxaanu leenahay hebel baa saayamay waxbuu samayn kari waayey waaynu wixii dadkii meesha jooga canaananayno laakiin haddaynan helin dad wax ka bedeli kara siyaasadda maskaxiyan iyo aqoon midna meeshun bay taagaan odaygii muxuu soo saaray kelmadda haddii la meerayso marka waynu isla meeraysanaynaa marka horta muhiimad taas waa qodob oo ah in loo baahan yahay in la helo dadkii ama dad waaweyn ama dhalinyaro ahaadaan inay noqdaan oo ku daydaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo kale ta kale oo iyaduna muhiimka waxa weeye sidii ninkan de isku reer Sanaag baanu nahay Cabsa Cali Boos marka isagana laakiin gobolka iga waroon muhiimaddu waxa weeye tan ah Soomaalidu xisbiyada tan iyo waxaan qabiilada lagu sameeyay oo runtii waa xaqiiqo weeye meel kasta aad tagto ninka xisbigaas ayaa qabiilka joogaana u badan yahay necessary devil maybe laakiin waxa weeye runtii in laga gudbayo aniga waxa ii muuqda rajo weyn oo in laga gudbayo taa qabiilka maxaanu idhi doorashooyinka ugu dambeeyay Somaliland ka dhacay golaha wakiilada waad garanaysaan barqab batuunsu ku soo baxay dad badan baa lahaa ninkaas reer yar buu ka soo jeedaa soo bixi maayo codka ugu badan haddaan qaldanayn ayuu helay muxuuna ku helay dadkii oo bislaanaya dadkii oo aragti halkan jooga waan u wada sheegay waxaan ku yiri aad iyo aad horta aniga si gaar ah ii taabanaysaa aad iyo aadna waan ku dhiirigelinayaa garab ha iyo hil labadaba waan u taaganahay dhalinyarta hablaha kollay aanu hadalka waa liiga fiicay laakiin saalkan waxaan ugu soo koobayaa duco aad iyo aad u qiimo badan in Allah subhanahu wa ta'ala xilka uu qaaday uu turta saartay inuu la garab galo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku guuleeyo isagana uu noqdo kii maaragtay kaga soo baxa waajibka idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin dumar ahaan hadday noqoto caawa aad baan u yarnahay laakiin marka dambe waa rooda lagu soo rogaad cali baa la dhihi jiray waan is soo habaynaynaa insha Allah bidmillaahi kariim dee aad iyo aad baan idin salaamaya jazakallahu khayran u mahadsantihiin walaalayaal وسليمان أحمد كسو دو ميكروفونك السلام عليكم بسم الله marka hore horta waxaan halkan ka salaamayaa dadkan quruxda badan oo sharafta badan oo ka soo qayb galay rag iyo dumarba leh waqtigan iyadoo adag oo qabowga ay tahay
waxaan kaloon mahadcelinayaa saaxiibkay cabdi barkhad oo asagana igu casuumay inaan ka soo qayb galo gudoomiyahaygana wuu fadhiyaayoo halkanoo waxaan dhahay gudoomiye bal adigu kaco noo hadal markaasuu dhahay maadaama adigu afayeenkii aad tahay adiga hadli kara waa iskiin barayaa marka hore magacayga waa Suleymaan Axmed ama Suleymaan South Africa sidaad u taqaanaanba meelaha inaad ka maqasheen waa laga yaabaa xalfadani Somaliland waa habeenkii ugu horeeyay ee xalfad reer Somaliland aan ka qayb galo magacayga waa idin sheegay sababtan oga soo qayb galana waa idin sheegayaa magacayga waa idin sheegay waa Suleymaan Axmed waxaanan ku hadlayaa afka boqortooyada biimaalka ee shanta Soomaaliyeed anigoo shanta Soomaaliyeed boqortooyada afkooda ku hadlaya shanta Soomaalina way degaan boqortooyada waa reer Somaliland oo damba noogu jirto nafsadeena siyaasi walba Somaliland u tartamaya annagana inaan la garteentano maadaama aan maaragta ku matalayno magaca guud ee boqortooyada biimaalka meel la meeshay degaanba ceeb ma aha shanta Soomaaliyeedba waxa weeye annagu waan la garteetameynaa ilaa boqortooyadan taariikhdeedana idina dib baan u qoraynaa buugaag baan qoraynaa oo soo saaraynaa oo soo socdoon rabna Soomaali inaan la wadaagno aanan barno boqortooyadan waxay ahaan jirtay iyo waxay dalka u soo qabatay haddaan inta ka gudbo professorka waxaan leeyahay marka koowaad waa qofkii ugu habboonaa oo aqoon-yahan ah oo dalkani Somaliland la dhaho ka saari lahaa dhibaatada maanta taagan ستا نفتيدان wax ka oranaya soddon iyo kow sano qurba joogay malaha waxa isdhihi doontaa ninku mawaayilba maya malaha anoo yar baan soo baxay laga yaabaa soddon iyo kowgaas sano ee qurba joogay Somaliland nabad bay ahayd anigoo reer koonfur ana mar walba waxaan ku taamayay inaan Somaliland tago on bedelkii aan koonfurtaan ka soo jeegay aan tagi lahaa aan u maro Somaliland inaan ku dago sababtoo ahna nabadda aad samaysateen reer Somaliland waxaan halkan aad uga mahadcelinayaa xukuumadda jirta hadda siyaasiyiinta iyo tobanka xisbiba ee Somaliland ka tartamaya waxaan xukuumadda uga mahadcelinayaa khaasatan reer Somaliland qaabka iyo saad u samaysateen kala dambeynta waxay ka dhigan tahay siyaasaddiina ama guud ahaan Somaliland markii la dhaho Afrika waad ka sareysaan qaabka macnaha siyaasadda oo la dhigi karaysaan just waxaan ka codsanayaa siyaasiyiinta hadda aan arkay qaarkooda inaysan qaab qabiil ka dhigin xisbiyada oo uu noqdo xisbiga Somaliland anigoo u hadlayo wali qoomiyadayda degta Somaliland ee boqortooyada biimaal anigoo u hadlayo kuna hadlaya magacooda afkooda ku hadlaya waxaan leeyahay Somaliland oo la wada leeyahayna waa midaan doonayno waxay ka dhigantaa taasa ma aha kali ah Somaliland reerka ugu badanaan ahay waa inaan madaxweyne ahaada sida hadda koonfurta ka jirto lama xishoonayo from now on runta isla taabanaya koonfurta waxa ka jira niman hawiye iyo daarood ahayn madaxweyne ma ka noqon karaba idinkana ka ilaaliya ta Somaliland nin alla ninka u qalma aqoonteeda leh kartideeda leh ee Somaliland waa inuu noqon kara madaxweynaha Somaliland oo idinkana doorataan fursadan caaw waxaan uga faa'iideysanayaa kow waa markii ugu horeysay een ka hadlo arrimaha reer Somaliland waa walaalaheen waa ku tixgelinayaa wanaaga iyo nidaamka iyo siyaasadda ay heerka ku gaareen maanta caalamka uu la gartay tamay uu fiirinaya say wax u qabanayaan idinkana boogaha iyo waxyaalaha jiro ka daaya haddaad tihiin siyaasiyiinta shacabku waa dad qiimo badan haddii wax yar aan ka taabto hargeysa makhaayadaha maanta waa lagu sheehin karaa waa lagu qaxweyn karaa ilmahaada banaanka ku ciyaari kara laakiin Muqdisho iyo deegaanada koonfurta habarteed bay ka tahay kuma ciyaari kartid walaalkay ina adeerkay laxmi oo 20 sano UK degana aydiisu soo muuqday qaraxiso buu ku dhintay waa nin caano la yaqaano Horn Africa buu u shaqeyn jiray Abdullahi Jaamac ina taqaanaan moogiye habeenku soo hayday subaxina qaraxi buu ku dhintay marka waa naxdin waa xanuun waa murugo ma tagi kari Soomaaliya maanta koonfurta anigoo ka soo jeedo waxaan ogahay nin kale intuu is dilin in adeerkayal ii soo mari la Somaliland marka idinka taa kama jirto nabad baad haysataane nabadiina adkaysta
riya gabadh khayr Allah siya riya isoo xasuusitay anigana riyaan halkan ka sheegay waa markii ugu horeysay Cabdikariim baa dabcay hadda ka hor inaan dhaho warniyaha waan riyooday hadda ka hor anigoo nin reer koonfure riyada aan ka hadle xalfadiina igu casum muusan igu casumi laakiin caawa waxaan leeyahay Cabdi Barkhad iyo inaan maaragta aan riyada ka hadlo riyada waxay ahayd runtii waxa la itusay ku soo kacay subax Soomaaliland la aqoonsaday oo la ictiraafay oo lagu dhawaaqay riyadaasna waxay rumeewi kartaa oo kali ah markuu qof daacad oo cadaalad ah sida hadda Samatar oo kale Axmed Ismaaciil Samatar waa aqoon-yahan waa nin bisil waxa laga yaabaa Soomaaliland markaan ku dhawaaqdaan oo madaxweyne uu ka noqdo inuu isagana shantii Soomaaliya kale saar raadiyo ilaa dad walaalo ah oo wada dhashay oo qaraabo ah ayaan nahay intiina maanta meesha fadhido Cabdiqaadir Boos baan isku dhownahay oo hadii wax walba dhacaan ninka hadda aan garabka qabanayo waana wax naga dhaxeeyo oo dadka Soomaaliya waad garan kartaan qaraabada waxaan nahay aad oo walaalo ah marka Soomaalidana waa dad saas ah reer Soomaaliland anigoo la hadlaya madaxda siyaasiyiinta wax garadka waxaan leeyahay waxaad haysataan 31 sano nabad aad ku naalooneyseen haddana horay u sii socda annagoo koonfurna indhaha idinka fiirinaynaa wanaagiina doonayna annagana inaan ugu dayataane inoo soo laabto annagana noo sheegay sidaad maamulka iyo wanaaga iyo qori isku dhiibka aad ku samaysateen nagala taliya khayran idin rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay Saleemaan riyooyinkii way soo tarayaan ayaa kala riyooday bal gacanta taag professorku aqoontii afmishaarnimadii muxuu ahaa iyo dhaqan wanaagii wixii wuxuu ku darsaday in riyo loogu sii daro ma sha Allah marti sharaftiiba halkii nooga sii socon doonta imikana waxaan u yeerayaa nin caana waa Yaasiin Ducaale waa YouTube-ka ku barateen isoo dhaw kaftankii siyaasadda socda weeye maanta aad baad mahadsantahay boqortooyada waa salaamaya aad baad mahadsantahay waad naga horeysaa nimanka reer Isxaaq waxaan ku naanay la darafyada aad u yeedhaan Soomaaliland la aqoonsan maayo laakiin dad ugu riyad ku aqoonsatayba baasha waadna dhaafsan aad iyo aad ayaan ku mahad celinayaa dhammaan dadkan sharafta leh soo abaabulay xafladan aadka u qurux badan ummadda reer Soomaaliland kulmisay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa innaga marti sharafkaana waa yahay aan sii wato hadalkayga marka hore waxaan taageerayaa sidii raggii iga horeeyay ururka Hilaa ilaahayna xisbiga ka dhigo baanu leenahay oo duceynayna kala astaantu way leeyahay reer Soomaaliland waxaan leeyahay professorka ciyaar ma ka faa'iideysta mujaahidnimadii laga baxo professornimada la galo markan inagoo Soomaaliland waa inaynu ku faanaa professor baa noo madaxweynaha waxaan leeyahay xisbiyada saddexda xisbi ee ku dhagan oo nimayo 10 sano joogteen hadda wax sameynaysaana professorka iyo baasha ku xidhiidhinina ogolaada doorashada haddii kale wallahi sidii Soomaali soo caroonayaayo inuu Soomaali ku noqdo xabka marka odayga ka xanaajinina anagi Albos isu kan sheeg ma ilmaadeer baanu nahay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay ma Soomaaliland ku soo birto waqti badan bay ugu qaadatay iman ka dhaadhiciyo war Soomaaliland waa wada leenahay koonfurta ka kaale laakiin ka soo bixada waadiga arkay saacad buu inaysti marka wuxuu soo arkay nabad shayga ugu qaalisan waa nabad naftaada ma la amaanaysid haddaad maanta Hargeysa ka baxdid oo ceergaaba tagtid habeen iyo maalin socotid qof saa ku eegaya male oo xabad sitar male taana waa ilaahay mahadi Afrika oo dhan ku arkimaysid dawladaha waaweyn oo Afrika South Africa wada aragteen harka galay baa la isku baa laakiin Soomaaliland ku arkimaysid waa ilaahay mahadi laakiin dabaasha hadii xumaatay beesha dhaxan la hadlaya abtiyaashay waxa jirta baa la yiri nin laba arday baa soo raacay adiga arkayo
xaqa markaad iskuul aadid waxaad meel aadid male markaad iskuul ka soo baxdid mase saaco yar baa jira marka nin aan weligii ma saaco helin ayaa ma saaco yar hooyadii shilin yar meel uga soo qaado waa siisay isagoo ordaayo soo daahay mid kale soo daahay aan hooyadii shilin bahayn ayaa shilin ka dhacay shilinkii buu ku istaagay maanta dhan buu raadiyay waa waayay war iskuulkaaga iska shilinkii weeday buu isiri kiiba intuu ay raqaatay jeebka gashaday waad ogtahay macallimiintu horta istaagaan waxay warkaale labadiina yaray xaga ku soo daahdeen kiiba yir hooyaday shilin ma hayso aabbaana shilin ma hayo maanta weligay shilin ka helay shilinkii iga lama raadinayay macallin kaasi walaa waa garti kan siida wargal adigu warkaale adigu xaga ku soo daahday markaasuu kan hooyadii shilin bay haysataaye shilinkii hooyadii soo siisay baan ku taagnaa saan maanta u balkeeyo marka beesha dhexaadda waxaad u malaysaa shilinkii bay nagaga taagayeen markay arkeen professor marka waxaan leenahay baasha la sii daayo baasha noo sii daayaanu leenahay waxa weeye anagu xisbigan waanu taageersanahay USB baa la isu kaya oran jiray anaga iyo nimankaa guda birsay baasha weynoo sideedii yaan waxba laynoo baalkiyeyn waseeganaynaa aynu rag badan baa kolley joogay haddii xisbi gabow meel baynu isugu yaacaynaa reerkan maanta wayaan baasha ka qaadnaa meel bay isugu beeshoonaysaa baasha marka waxaan leeyahay oo halkan aan fariin uga dirayaa madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne arrintaadii aad rabtay waymaad ku istaagtaa waymaadan jecjecin kuguma ogeyn waymaadan u jecjecin nimankaas oo aad halkaaga ku istaagtaa ururku siduu professorku noogu soo baxo aanu isagoo waxba wada noogu soo noqon waxaana leeyahay annagu weli dee urur ma samaysane haddaanu nahay beesha odaygu sheego warsingeliye dawayn caawinaynaa kolley xoogaa baanu haysanaa siduu sheegana puntland iyo somalilandna waa jirnaayo laakiin kaadhaka waa qaadaan labadaba waa haynaa haddii aad u baahataa waynii buuxinaynaa marka insha allah nagu talagala kolley aqoon badan baanu ku tuhmaynaa waddankanna imaad mid ka dhigaysaan baanu tuhmaynaa waxaanu kaloo ku tuhmaynaa waxyaalo badan waagii daahir qabsaday baan daahir weydiiyo oo daahir yaalow waagii reerkan beesha dhexe kugu ogolay jagada imaad qabatid wallaahi wuxuu iyaga kala badbaadinayay xaaladooda qasnayd maantana waxaa kala badbaadin doona professor Samatar oo xaaladdu waa qasan tahay marka insha allah waxaan rajaynayaa khayr ururkana waxaan rajaynayaa khayr idinkana khayr baan rajaynayaa waxaan leenahay anigu wali mar riyoona wariyadeedu waa soo socotaa marka insha allah waa guul baan rajaynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa nin odaya oo halkan nala fadhiya waa Maxamed Cabdi الله يهي إسقنا وحيك هاجا عدن كسردو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا دمانتين كسوق بقلياش شرفت مدن xafladan qiimaha badan ee aynu ku soo dhaweynayno ku taageerayno urur siyaasadeedka Hilaac waa salaamantiin marka hore marka labaadna waxaan u mahad celinayaa akhyaartii soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha badan ee waqtiga iyo juhdiga geliyay intaas wadada isugu keenay halkan si ay u taageeraan ama ereyadooda uga yiraahdaan xisbiga ama anigu ma soo istaagin hadal badan inaan meeshan ka yiraahdo xaqiiqadu waxay tahay ma jecli waayadan dambe in aan barnaamijyada siyaasiga inaan ka hadlo ma jecli sababtoo ah siyaasadda Somaliland murankeedii baa batay sidaa daraadeed ma tago kamana hadlo inta badan waayadan dambe madalaha siyaasiga ah laakiin waxaan soo ajiibay saaxiibkii Cabdinuur Barkhad markuu ii sheegay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ururka uu furay in la taageerayo sababta aan u imidna waxay tahay Ahmed Ismaaciil Samatar laba mihnadood uu leeyahay ayaan runtii aad u jeclahay ama ka ag dhawahay mid waa mihnadiisii hore ee saxaafadda oo runtii ah tan dhagaha iyo indhaha bulshada u ah mihnada labaad waxa weeye tan waxbarashada
oo ahaa barbaariye ama macallin dad badan ama jiilal badan soo saaray jaamacadaha waaweyn ee Mareykanka ee wax ka dhiga diinka jaamacadda Macalester oo ku taala gobolka Minnesota oo runtii jaamacad weyn professorka waxaan ku taageeraa oo kale xilligii uu isaga iyo Allah u naxariistay professor Ali Khaliif Galayd ay tageen Somaliland markay ka soo quusteen koonfurta Soomaaliya ee aynu 60kii wax ku darsanay markay yaqiinsaneen in aanay koonfur waxba ku lahayn in aanay diyaar u ahayn inay halka ka noqdaan waxa loo yaqaano second class citizens muwaadiniin darajada labaad ama darajada saddexaad qof walba wuxuu horan yahay meesha uu yahay barnaamijkii tabliiqa siyaasiga ahaa ee wadeen ayaan runtii ku taxnaa oo aan aad ugu taageersanahay waxa taas ii weheliye waxay tahay halka aasaaska u ah ama manbaca uu ururkani ka bilowday ee masqad ra'sigiisa ah waxay tahay gobolka Awdal ama magaalada Boorama oo ah magaalo lagu majeerto oo tacliintu ay taalo oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geeska gees ay isugu soo hirato arinta taa ii afriysa waxa weeye anigu deegaanka aan ka soo jeedo haddaan ba afka ku ballaariyo saldanada Maakhir waxa weeye waxa naga dhaxeeyay deegaanka Awdal ama Boorame ama dadka la yiraahdo maxaan ku iraahdo Adal Empire iyo saldanadii Maakhir waligeedba waxa ka dhaxeeyay xiriir soo jireen aha oo Saylac iyo Laasqoray isku xirnaayeen xiriirkaasi intaynan xornimada qaadan hadda taariikhda dib u raacdaan 1954 waxa lagu shiray meesha la yiraahdo Laascaanood shirkii la oran jiray Gol Khaatumo halkaas oo lagu asaasay ururkii la oran jiray United Somali Party oo ahaa urur xisbi noqday oo goboladaas Sool iyo Sanaag iyo Boorame iyo Saylac iyo halkaas ay ka soo bixeen 12kii xubnood ee baarlamaankii aynu helay 1960 ee 33 ahaa 20 waxay ahaayeen SNL 12 USP bay ahaayeen halna wuxuu ahaa NUF marka xilfiga siyaasiga iyo bahawadaagta siyaasadeed ayaa naga dhaxaysay marka si gaar ah ayuu ururka Hilaac aniga tilmaan gaar ah iigu leeyahay waad ogtihiino dadku markay sahan tagaan waxa weeye oo ay soo arkaan meel ay reerka u raraan dadkeena reer guuraaga ahi waxay sameeyaan intay reerkii soo rarayaan haday arkaan meel wanaagsan ama guri wanaagsan oo ay reerka ku furaan waxay sii dhigtaan wax la yiraahdo laansaar si ay u sii calaamadsadaan odayaasha cibaadada jecel ee safka hore masaajidka ku tukadana imaamadooda hore sii dhigtaan marka anigu ururkan Hilaac berika maalin haddaan rabo inaan urur ku biiro wuxuu noqonayaa ururka aan laansaarka sii dhigtay sii ogaado urur kale ayaa isna ka jira ururadan hadda soo gudbay oo runtii aan munaasabadan uga faa'iideysanaya oo ururka Waaberi oo aan jeclaan lahaa in labada urur Hilaac iyo Waaberi ay cududooda siyaasadeed mideeyaan waayo hal reer ma soo saari karo ama hal deegaan ma soo saari karaan madaxweyne mana goyn karaan marka sidii 1960 aynu xilfiga u lahayn inaynu taas mideynana waa laga maarmaan waxaan doonayaa oo kale waad ogtihiin waddankeeni marxaladda siyaasadeed waqtigan marayo waa marxalad runtii crossroads oo isgoys ay xaaladdu taagan tahay oo qir iyo qir bay taagan tahay sidaa daraadeed waxa inaga leenooga baahan yahay dadkeena aan beesha dhexe ahayn ama deegaanada darafyada loo yaqaano in kaalintii aynu qaadan jirnay xilligii 1991 shirkii Burco aynu wixii soo dhaweyn jirnay oo kale ay kamid ahaayeen Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ali Jawhar in aynu arintan u guntano oo aynu wifaaq ama nabadgeliyo ama heshiis siyaasadeed aynu ka dhaxdhalino laakiin haddii aynu la kala safarno oo aynu xisbiga kulmiye ama xisbul xaakimku hawsha uu wado aynu dabka ku sii shidno xaaladdu way isbedelaysaa mana rabno dhulkeena in carqalad siyaasadeed runtii ay ka dhacdo dhalinyarada mid baan
ku boorinayaa waxaad u malaysaa nin halkan iga horreeyay wuxuu yidhi ma jecli inaan siyaasadda iyo waxaa ku biiro anigu runtii dalkii baan beri dhexe tegey waan soo indheeyey waxay noqotay in aan fikirkayga siyaasiga ama sida aan dadkayga wax ugu qaban karo inaan meel ku biiriyo sidaa daraaddeed baan waxaan ku biiray xisbiga wadani la yidhaahdo oo aan waqti badan ka tirsanaa ujeedka aan ugu biirayna waxay ahayd ra'yigayga meel aan ka cabiri karo runtii ma jecli muxaafidnimada ma jecli oo waxaan jeclahay inaan wax toosiyo tusaale yar baan idin siinayaa nin halgan badan ku jiray oo la yidhaahdo Anwar Ibrahim oo waddanka Malaysia Prime Minister hadda ku guuleystay waqti badanna loo xiray ayaa isagoo dhalinyaro ah wuxuu ku dhiiraday inuu xisbul xaakimkii ay ahaayeen dadka malayga uu ku biiro dabadeetana wadaad xisbi islaami hogaamin jiray baa la taliyay wuxuu ku yiri war siyaasaddu waliba siyaasadda ay wadaan xisbul xaakimyadu waxa weeye waa bulaacad wafuusto bulaacadi ku jirto haddaad dhexda u geshid waad ku milmaysaa waxa weeye adiga ku wasaqoobaya sidaa daraaddeed waxa ku wanaagsan buu yiri inaad xisbigayga islaamiga ah ee mucaaradka aad ku biirtid marka banaankaad wax ka nadiifin karaysaa oo aad ka hagaajin karaysaa buu yiri moogta ninkii waqti wuxuu soo halgamaba xisbigiisii dabina siyaasadeed bay u dhigeen xarig baa la geliyay waqti badan ayuu xabsi ku jiray 30 sano kadib ayuu wuxuu ku guuleystay inuu waddanka ka noqdo wixii uu ku haminayay ee ahayd inuu isbedel ka hirgeliyo marka waxaan idin leeyahay dhalinyaro ay niyad jabinina ku biira ururada siyaasiga ah qayb weyn ka qaata ururkan professorka ee isbedel doonka ah na runtii waxaan filayaa inuu wax badan ummadeena badbaadin doono wax badan inuu qaban doono inuu aqoontan casriga ah ee uu meelahan ku hayay inuu waddankii geyn doono in uu wax badan bedeli doono ayaan filayaa marka anigu hadal badan aan sii oranayaa ma jirto mar labaad iyo mar saddexaad waan idin salaamayaa waadna ku mahadsantihiin dhegeysigiina mahadsanid maxamed darafyadu doorkan way dhaarsan yihiin waxaan u malaynayaa inaan laga qaadi doonin lugahan ku codaynayna siyaasi da'yar oo ururkan oo kale qolyada gaadhigaas socdo ku laabi doona noqon doona maxamed ciise ku soo dhawo mikrofoonka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديات بدنا ما تبي برضه مركب روما تسنتين برضه إحنا مهد علنية أخيار تشرفت بدن إيرنتي إنه وجيدي إن نعاود هالكن يسكون مع الناس صورة جلسي وحنا ليه آديات بدنا ما تسنتين أركي هلا عنا واض وحيد كسوقي واد قد بسينا ما سيج كويد كدوري واحد دوري إن صدح إرير دول شوك صدو هدوي هاي إن شاء الله أدي يصورتك شو نبركو حسب كان كان ولي حسب ما نقررت مركو يعني صحنه بو كجرا ان شاء الله لكن واحد دوري انو غدبو حسب انو غدبو دونيا marka wadankiina runtii hadda de waxa ka taagan wal weerar iyo difaacilin ba taagan wali qolana lagama guuleysanin teamka doonaya inay ururada furaan iyo teamka doonaya inaan ururada la furin waxaan rajay waxa muhiim ah in siyaasadda dadka wanaagsan ay noo galaan haddii dadka wanaagsan siyaasadda ay noo galaan waxay noqonayaan dadka sameynaya go'aamada masiiriga ah ee saameynta inagu yeelanaya inaga haddii inta xumi mar walba ay siyaasadda inoo fadhido waxa mar walba aad niyad jab kugu imanaya adiga way go'aanka cidda gaaraysa waa ciddii xumayd moodaa inaynu dib ugu noqonayno meelo laga soo saaray Somaliland maalmaha ka dambeysay dib aynu u soconaa waxa muhiim ah markaa inaynu raadino dad hore inoo riixa oo hore inoo wada waxaan rajaynayaa markaa Samatar iyo teamka ururkooda inay noqdaan dadka hore inoo ka xayn doona hadii Ilaahay raado anagu xaggaas uma dhageysanaa wixii ka socdo un baan runtii walwal mar walba way dadka aan wax u tarayna ee mar walba aan ku fadhina hadii halka balaaye ka dhacdo balaayadan way kula joogtaa hadii roob ka da'o barwaaqada iyo naxariistaas halkan ay nagula joogtaa wax kasto wadankii ka dhaca inuu la jooga marka waxaan leenahay rabshada ummadda laga daayo xeerku waa qoran yahay yan la iska indhatirin sidiisa loo raaco taas waa taas ta kale arrin runtii wadanka waan aadaa mar walba waxa aan aad iyo aad ula yaabay ila wadaagaya
soomaalina dhammaanteed haysata generationkii da'deeda ahaa ama ma garanaysaa ay soo kacayay ee qabka lahaa reewqooygu sidiisaba runtii waa dad qab leh waa dad muxtarima runtii intaan anigu aqaano wax la yidhaa cadow baa bilaamay cadow la yidhaa gulwadayn cadowgana haddaynu iska gaari weyno adduunyada u malayn maayo qab dambe iyo nolol dambe inaan yeelanayno qofka biniaadanka ilaahay karaamu markuu soo dhasho karaamu siiyaa qofuu karaamaysan yahay karaamadiisa laakiin waxaa dila gulwadaynta disha waxaanu taran buu tarsiinayaa isagii waa islu goynayaayo dee waxa weeye kaa waa kanoo faaniyey kaasi waa kan balaayay mar kasta oo kaa la faaniyo waa faraxsan yahay kan wax faaninaya isagu iskuma haysta inuu dhib naftiisa ka gelayo maadaama qofkan ku faaninaya waxaanu tarin macnaha guulwadayntaas runtii waa cadowga ugu weyn maanta Soomaaliya oo dhan yaala Soomaaliland yaala dadka talada maanta jooga waxaan leeyahay oo niman yahow dadka dhalinyarada ha gumeynina ha ka dhigina wax liita oo wax walba qaata waayo haddaad maanta gumeysaan dhalinyarada maanta generationka nool ee berri toole noqonaya mustaqbalka berri toole ee wadankan qaadan doona taladiisa haddaad gumeysaan yaa idiin noqonaya tal taasaa runtii aan aad iyo aad uga murugooday mar badan aan arkay waxaan rajaynayaa cidda talada haysa ma aha madaxweynaha oo kaliya inuu ka daayo in loo guulwadayo war shaqada adaa lagu diray guulwadayntu waa been kan guulwadaynaya nacasnimo la guulwadaynaya ka loo guulwadaynaya waa doqoroo ka sii liitaa way waxaan tarin hay sheegin boo oran lahayd wadani ragayay Soomaa dhalinyaradana uu la goynaya marka please cidda xilaalka haysa ka daayay inamada dhalinyarada iyo hablaha guulwadaynta aad mar walba ka dalbanaysan inay idin guulwadayaan ama shaqadaad kaga caydinaysan inay idin guulwadayn waayaan macna intaasaan runtii gudbinayaa message-kii ugu dambeeyay weey hablaana aad baan u salaamayaa ma sha Allah Allah quruxda badan leh aad baan u salaamayaa iyo siyaasadana waa laga maarmaan waayo hablaha inay soo gashaan siyaasadda waa muhiim waayo safe risbatiin idinka wax badbaadin karaya ragii waan isculaadinaynaa markaan is yar aragno col baan bilaabaynaa haddii habla nagu dhex jiraan laakiin waxa laga yaabaa inaan kala warwareegaysano moogti oo hablaha ka ilaalinaa moogti markaas soo gala siyaasadda aad iyo aad baad mahadsantihiin waan idinku raajiyey marka thank you aad baad mahadsantihiin dhalinyarada lagu celceliyay dhalinyaradu Soomaalida kala hadday noqoto iyo Somaliland hadday noqoto way kala duwan tahay Soomaaliyada odayaal baa la ururiyay wax u soo doorta laakiin Somaliland waxa la yiraahdo doorasho one man one vote jirta hadday iyagu inay doonayaan inay wax bedelaan ama ay soo galaan siyaasad iyagaas ku hay baryadii iyo wixii way dhaaftay fartaydaan eeday hawdhanina waa hala codeeyo haddana waxaanu yeedhayaa nin dhowr jeer aad magaciisa maqasheen oo qabanqaabiyaasha meesha ka ahaa rag badan casuumay oo inteena badan dhabarka soo taabtay meesha hala yimaado injineer Cabdinuur Barkad ku soo dhawow mahadsantahay Qadar Xasan Loore oo salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim martida caawa ka soo qayb gashay barnaamijkan aanu ku taageerino urur siyaasadeedka soo gudbay ee Hillaac rag iyo dumarba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka labaadna waxaan idiga hambalyeeynaya waqtigiina qaaliga ee ku timaadeen meeshan ee aad soo siiseen sidoo kale waxaan mahad u celinayaa beesha walaalaheena biyamaal oo boqortooyada oo halkan nagala soo qayb gashay oo horkacayo Saleemaan iyo xirtiisa inta marka laga yimaado laba qodob baan ka hadli doonaa hadalkana idigu badin maayo anigu qodobka hore waxaan la hadlayaa dadka reer Awdal ama ku abtirsada magaca Gadabursi qodobka labaadna waxaan kaga hadli doonaa professorka Axmed Ismaaciil Samatar oo aan isku gabalinahay iyo wax qabadkiisa iyo waxa uu qaban doono inta markaan ka imaado reer Awdal waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo anigoo waliba ku hadlaya magaca gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee gobolka Minnesota halmaani hadalku ma jirto oo aniga iyo gudoomiyaha Cabdiqani Xaaji October oo halkan ka salaamayo naga maqan aan garanaysayo oo ka soo qayb galin laakiin afkiisii aan ku hadlayo maadaama aan wada shaqeyno ama aan ku xigo inta marka laga yimaado waxaan la hadlayaa dadka reer Awdal
muddooyinkii ugu dambeeyey intii xukuumaddii madaxweyne axmed maxamuud siilaanyo waxaad moodaysa dadka reer awdal odayaal hadday tahay iyo dumar hadday tahay iyo dad lasoo dhalan habaabiyeyba inay makrofoonada iyo tiifiyada hoos joogeen iyagoo intaa ka cabanaya saami iyo howlo ay leeyihiin somalilan lama wada laha iyo waxbaa nagaga maqan reer awdalow laba isma qabanayso in aad marka ninka walaalkiina uu soo baxee uu istaago in uu ma garanaysaa miiska wax lagu cunayo uu intiisa goosto inaad ka wada dhuumataan oo aad ka doorbidaan inaad noqotaan ku-xigeen iyo cadquureed inaad qaadataan laba meesha is qabanaysa ama isleh maaha marka waxaan leeyahay dadka caynkaa u fikiraya ama fikirkaa uu ku jiro cadquureedka inay qaataan ama ku-xigeenka habbiga ama ku faraxsan waxaan leeyahay sidaasi uguma danaynaysid dhalinta gadabuursi ee ka soo baxa jaamacadaha camuud iyo eelo iyo timacaddaba ka soo baxa dadkaas waad la degaysaa 30 sano soo socda adayna ku eersan doonaan marka dadka inkaara ka galabsan balay dadka caynkaas qodobka labaad ee kaga hadlayo markaan inta ka baxo waa professorka saaka ayaan wada hadalnay barnaamijkan inuu ka soo galo Zoom ama telefoon inuu ku soo hadlo aad iyo aad buu xiiseynaya wara jeclaa wayna u suurtagali weyday maadaama halka uu joogo khadka internetka oo aad ugu xun yahay sidoo kalena waqtigan aan inagu hadda hawsha wadanay oo aynu ku ballansanayn 6dii oo aynu soo daahnay badideenu oo ay tahay dhaqan ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin in uu ma garanaysaa waqtigaasina oo waqti ku adag laakiin se waa inala socdaa waana inuu og yahay nin walba ma garanaysaa halkan fadhiya abaalka ugu haya bowdarageed maalinba mid baa jaban marka waxa weeyaan maanta professorka inaynu u hiilino oo aynu damaciisa siyaasadeed aynu ka saarno professorku waxa weeyaan ninka qura ee ka soo jeeda gobolada waqooyi oo markuu aaminsanaa fikirka khaldan ee Soomaali weyn waxa la yiraahdo u tartamay xil madaxweyne laakiin se ilaahay ma haddii oo ku kala fikir duwanay maanta hadduu ku soo noqday Somaliland oo haddana tolkii uu isagu keligii noqday ninka kaliya ee damac leh ee hanka u socda ninka ragga libinta lagama xisdiye inaynu ku garab galno waa waajib ina saaran dhamaanteen xisbigana inagu ma lihin waa xisbi qaran ama urur qaran Somaliland oo dhan baa wada leh martida caaw halka nagala joogtay looga timiday maakhir sanaag buuhoodle iyo dhammaan gobolada Somaliland gabilay maroodijeex saaxil dhamaantood waxa u yimaadeen xisbigan ay rajo ka qabaan waxa la rabaa xisbigan inuu dhaqaaqo oo hore u socdo cidii dhaqaajin lahaydna waa inaguna waxaynu ku dhaqaajin karnaa inaynu hadal maran iyo naqdi aynu meelaha la fadhino maaha inaynu professorka ku taageerno waxaynu ka rabno hiil haddaad lacag bixin karaysidna aad ku taageerto haddii ma garanaysa afaad ku taageeri karaysidna aad ku taageerto waayo waa nin ma garanaysa u danaynaya ilmaha dhali doonto maadaama mujtamaca Somaliland statistics-ka la hayaa yihiin dad aad u dhalinyartaasina ay u baahan yihiin caafimaad ay u baahan yihiin waxbarasho ay u baahan yihiin nolol wanaagsan wadankeenu aanu lahayn wax soo saar badan aynu inteena badan dadkan galbeedku iska yihiin dad qodaala inta dambana markay xumaanteena iyo qalbigeena isku wanaagsanaan waayay ilaahay uu inagu saliday abaaro marka waxa weeyaan dadka inaynu u danayno oo aynu wax badan u bedelno oo aynu ka wanaajino ayaa la rabaa professorkana waxaan leeyahay professor waad isku dayday haddii aad guuleysatana waad guuleysatay haddii aad laga guuleystana maad guuldaraysan oo hadhow haddii la iskaga yimaado Somaliland waxa la odhanayaa way xisbigii gabilay ilaa udurka soo bixi jiray ee la lahaa marka taasaaba inagoo dhammaanteen inoo muhiima hadalkana idigu badin maayo waxa weeyaan ninka aragtida dheer leh hala taageero inagu irid inoo furay inagu albaab inoo furay waxa weeyaan dhalinyarta ayuu wada inaga xidhnayd u jeexay marka waxa la rabaa food stepkiisa inaynu qaadano marka anigu hadalkeeda ugu dheerayn maayo intaas ayaa kaga baxaya waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh imikana aan ku soo dhaweeyo sheekh cabdiqaadir bal inuu isna kelmad yar inooga soo jeediyo meesha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما هسنتهين إلهي با محله يسوق كان هالكن كم سو تلقلين إن هالله لكن وحماركتا يديرجلي ذات كي كهالله وهو الريان برنامج كفسن كسياسة ياسين iyo boss iyo Saleebaan dadkaas markay ka hadleen baa maaragtay arrin dhiirigelisay marka laba arrimood baan rabaa anigu laba arrimood oo kooban mid waa dadka Somaliland midna waa dhalinyarta Somaliland oo dadkii iyagoo ku jira laakiin haddana si gaar ah midda dadka Somaliland maanta Axmed baa idin yimi oo idin leh laba arrimood baan idin sidaa oo halka ku qoran meesha arrintiisa phrase-kiisa ama maaragtay hadalkiisa waa integrity iyo competence Nabiillahi Yusuf markii jeelka uu ka soo baxay Ilaahay ka soo furtay jeelka uu boqorkii u yimi laba arrimood buu Nabiillahi Yusufna sheegtay oo waxa uu yiri qaala ij'alni ala khasaa'in al-ardi inni حفيظ عليم وعيد بقركي مركا ماشي هايستي ورانيغو هاد waxaan doonayaa inaad ii magacawdood iga dhigto wasiirka dhaqaalaha maxaa yeelay laba arrimood baan sitaa inni xafiidun caliim waxaan ahay nin wax ilaalinaya cilmina u leh Axmed Ismaaciil Samatar Somaliland buu yimiday wuxuu leeyahay I have integrity and competence labadaas aan idin wadaa waxay shabahaan marka labadaas hadaad macnayso integrity macnaheedu waa maxay waa inuu sharaftii ilaaliyo karaamadii ilaaliyo competency-giina waa cilmigii awoodii ayuu leeyahay yani wixii buu yaqaanaa marka hadii nin baa wuxuu yiri mujaahidnimadii naga daaya 30 sano hadaynu ku soo biyo marnay mujaahidnimadii maanta waxaynu u baahanahay inni xafiidun caliim qof wixii noo ilaalinaya 30 sano la soo sameeyay halkaana ka sii wada marka labadaas uu noo sidaa hadaynu nahay reer Somaliland Axmed Ismaaciil Samatar idinkoonan ku eegin isha qabiilka ku eega isha aqoonta dhalinyartii baan u soo gudbayaa marka dhalinyartii waxa weeyaan 30 sano koonfurtu uu ka socday dagaalku waxaan ahaa dadkii dagaalku ka dhacay jaamacadda markaa bilaabay dagaalku ka dhacay baan ahaa anoo dhalinyar ah wali dhalinyartii baan ahay marka sidaa darteed 30 sano Somaliland nasiib bay lahayd dadka Somaliland odayadeedu way u taliyeen tabarba intii ay geysay way u taliyeen waxay keentay in maanta dadka ka shaqeeya laga bilaabo Raaskambooni ilaa iyo meesha kale u dambaysa maxay ahayd laas casayr inta ka shaqeysa wadad reer Somaliland macallimiinta dhakhtarada kuwa businesska ku jira kuwa hay'adaha u shaqeeya waa wada Somaliland maxay ku dhacday marka waxay ku dhacday waxa weeye 30 sano ee ay dhisnayd halkani arday baa soo baxaysay ee xamarna dagaalku ka socday macnaheedu ma aha inaan ku wiirsanayno waa nasiib darro laakiin opportunities kaas baan inagu helnay inaynu dadkeenii wax bartaan dhalinyarteenii wax bartaan maantana ay halka ka wada shaqeeyaan maantadan nin baa halkan fadhiyay oo ka waramayay qaxootiyada ku yaala mooyaale iyo meeshii Kenya u dhaweyd doolow qaxootiyada ku yaala ragga ka wada shaqeeyo dhan waa reer Somaliland marka taas maxaa keenay waxa keenay nabadgelyadaas intay jirtay marka waxaan leeyahay dhalinyarta marka hadda maanta waxa jooga dhalinyaro fada badan sanad walba intaas oo kun oo dhalinyaro ayaa jaamacadda ka soo baxda dhalinyartaas marka waxaan leeyahay Axmed baa maanta idin leh inni xafiidun caliim idinkuna aqoontii waa leedihiin aqoontiinu marka waxa la yiri ninkii muxuu ahaa madaxweynihii Mareykanka Ronald Reagan ayaa markii uu maaragtay mar labaadka rabay in la doorto ayaa wuxuu yiri hadal cajiib ah are you better off inaa ku sii jirtaan
sidii aan idinku waday mise inaad meel kale nin kale idiin yimaado oo uu markaa bal isfiiriya maxaa idiin wanaagsan ma inaad ku jirtaan habdhaqankii iyo nidaamkii aan soo sameeyey maxaa yeelay wuxuu bedelay ninkii ka horreeyey ee uu bedelay Carter buu ahaa baan u malaynayaa ee uu bedelay dhaqaalihii oo liita ayuu yimi dhaqaalihii buu kor u qaaday markaasaa wuxuu yidhi 4 sano fiican baan soo marnaye ma 4 sano inaad ku sii jirtaan baad rabtaan sidaa inay idinku sii socoto mise wax cusub oo kale oo aynaan ogeyn inaad meeshii u yimaado marka waxaan leeyahay dhalinyarta Somaliland are you better off ina qabiiladaas hoos fadhidaan idinku guulay wadaynaya ninkaasi kelmaddu isticmaalaya aad baan uga helay idin guul wadaynaya idinku guul wadaysanaya inaad ma aragtay si hoos fadhidaan miyaad rabtaan mise ninka idin leh inni xafiidun caliim anu hal arrin baan ku raacaya on ku soo xisbigaas kaga mid noqonaya halka arrin waxa weeyaan ay soo jiidatay waa deegaanka weli ma aragnin ka hadlaya deegaan oo leh environmentigii sidii loo soo celin lahaa waddankeennii deegaan ahaan wuu baaba'ay geedihii way baaba'een xaaluf badan baa dhacay dhirtii baa baaba'day noloshiina way baaba'day abaaraha waxa keenayana ee soo celcelinaya roob la'aanta waa wax dhiraba ma jiro marka in dhirayn dib loo sameeyo wax fikradaas wata oo fikradaas ka hadlaya weli maan arag demabaynaan maba naqaanaba nin intuu soo istaaga halka la yiraahdo waxaasan qabanaya nin yiraahdo mooyaane annaga doorkayagii weeyaan mooyaane maanaan aragba nin la waxaan idin wada marka waxaan leeyahay raalli hadalku idinku dheereeyay marka waxaan leeyahay dhalinyar Somaliland haddaad tihiin dadkii wax bartay 30 sano wax soo baranayay this is your chance are you better off inaad joogtaan hoos joogtaan nimankaas mise inaad maanta bal ninka tijaabisaan waxba idinku seegi mayso what you gonna lose Trump baa ku yiri dadkii madooba maxaa idinka lumaya hadaa aniga ay soo raacdaan wax idinka lumaya ma jiro marka ninkan hadaa soo raacdaan wax idinka lumaya ma jiraan waxa idin leeyahay waxba idin siyaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Axmed Ismaaciil Samatar dhinacii waxbarashada oo waxbarashada baan dhinac ka wadanahay dhinacna waa nin reer beesha oo markaasi aan isku dhinacnahay okay waxaan markaan jaamacadda dhigan jiray waxa naloo dhigi jiray maada la yiraahdo adaptation to environment stress oo geed baa la soo qaadaya geedka marka la soo qaado wax lagu beerayaa carro carrada markaasi haddii uu cadceedda iyo dabaysha iyo waxa dhacaya u adkaysto dhinac baa loo saaraya haddii uu adkaysan waayo geedka kalena dhinac baa loo saaraya ilaa marka dambe la helayo geed weedarka u adkaysta oo la qabsada marka imika waxay joogtaa beelaha darafyada sida maakhira iyo khaatumiya awdal waxay ku jiraan siyaasad stress environmentigu uu yahay oo beesha dhexe uun wax walba markaasi ay wada qaadatay sidii loola qabsan lahaana waxa ka koowa professorka oo maanta geedkii ugu horeeyay ee ay ku dayayaan beelaha darafyadu inuu u istaagi doono stresska environmentiga iyo barasharkaasi markaa beesha dhexe ay markaasi yaala mahmaha yar baan soo qabanayaa ama example yal waxa la yidhi digaagad iyo diig baa isqabay way isqabteen oo way dagaalameen marka digaaga diigii baa ku yidhi digaagadii caruurtaadu haad soo weeraraayo sidaydana ma adintid buu ku yidhi diigii baa odhanaya markaasay digaagadii tiri nin adimayo aanan tukanayn waa adiga marka inaku waxaan noqonnay beerihii dalafyada diig eedaamayo oonan isagu imaanba noqonayn waar innaga maxay noo diiday innanka inaan salaada tujinno oon dadka horgalno ma eedaanun baan wadnaa sida diig waa wax yar waa hard to believe moogtahay marka waxa weeyaan geed adag inaan noqonno oona laynagu soo celcelin uun waa dhulmahantoo waxba la qarin maaye warsangeliyow samaroonow war dee maynuku maad eedaamaysiinun aawa imaamnimadiinni marka eedaankaa maanta waan ka baxaynaa mikrofoonka xaggaasaan dhigaynaa
cimaamadan qaadanayna salaadan tujinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah haye ninkan odaygaaba yidhi gacanta taagay isku sheeg magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان كسو قيب قلياشة حفلة وسلامتهن سلام كبعد جد ورت مركور أسوق في الشاقو أنا وحالي هذا كامل محمد نور وحنكو هذا يا قومية بقرطوية ده باش بيمال محمد حنفترق در انت بعد جد laba qodob oo gaagaaban baan ka hadlayaa qodobka koobaad waa xisbigan walaalkay Axmed Ismaaciil Samatar heel iyo hooban la garab taaganahay taasi waxa weeyaan waxaan u sheegay bulshada ka soo qayb gashay xafladan iyo inta dhageysanaysaba qodobka labaadna waa Somaliland waxaan leeyahay Soomaaliya waxay dhahdaa doobtaha duu buuxsad inuu daata u halis 30 sano baad haydeen nabadgeliyo iyo nolol marka koonfur maxleeda ma jirto koonfur waa u dhamaatay dad iyo duyo iyo dal midna ma ay jiraan xaqiiqada markaan ka hadlo taasna ilaahay baa nagu cadaabayna waa wax jira weeye mid kale aan ku darsanayaa midka kale waxa weeye waa ku yar xogaa yar maahan ku daraa lahaada ninbaa waxaa la yidhi niyahow 70 ma jirtaa tobaakada iska daa waadan garanaya tobaakada aday ku haysaabay tobaakada adiga naftaada ku haysa waadan garanayni horta Somaliland markii la yiraahdo dawlad madax bannaan way indigana garanayni riya sheeg oo cambarkeeda ku darbuyire 30 sano ay waxay haystaan nabadgeliyo nidaamkii dawladda kala dambeyn waxbarashadii kaabayaashii dhaqaalihii noloshii bay haystaan hargeysa xilligan aqaan jiray barisamaadkii iyo maanta waa laba kala wadan ama Soomaaliland ahaan caasimadaha adduunka la tartamaysa maanta de koonfurna siday tahay nin idin ka sheekayn maayo waxaan la walaalayaalow Somaliland waa idin ku taageersanahay nabadgelyada iyo walaalnimada iyo mataqaanaa ay wanaag aad samaynaysaan de midda ayada inaad ku sii socotaan baa loo baahan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inteena badan baraf baa meeshan ku dilo waa YouTube kan baan daawanaa marka lama kala garan karo waxa ka jira wadankii marka wax badan buu og yahay xafladan waxaynu ku soo gabagabaysanaynaa haddaan idhaahno reernimaan u ordaynaa waa wixii imikuunaan ka baxnaa lahayn moogta baarlamaanka waxaa la yidhi darafyada haddii la isku daro oo macalugaha ay taagaan xitaa mooshinkaba ma gaadhsiinayaan marka dadku way isku baahan yihiin dhexe iyo koone iyo cidhifba waynu isku wada didaynaynaa ururkaasaynu soo saarayna soo ballanteenu saa maaha midda kale waxaa la ii sheegay in professorku uu mar fasax soo qaadan doono inoo iman doono xaflad weyn baa markaa la qaban doonaa taana usii diyaar garooba khudbadaha sii qorta isa sii habeeya waa xisbigu waa xisbigiini waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu